taariikhda ismaamulka Mandera ee waqooyi bari Kenya marna ma aysan helin nuuca hoggaan leh aragti siyaasadeed iyo mid isku dheelitiran lehna daacadnimo iyo awood guuleysata taasi oo sare u qaada bulshada midnimadeeda iyo hanaanka guud ee maamulka. Hoggaanka bulshada reer Mandera ma ahan mid uga faa'iideeyay fursadaha jira dhan waliba ay ahaato dadka ay maamulaan mid siyaasadeed ama mid khayraadba, balse waxa ay u janjeeraan dana shakhsiyadeed iyo kuwa qabiil, taasi oo keentay in musuqmaasuq iyo tabardarri bulshada ku timaado qaybaheeda kala duwan. Inta badan hoggaanka ayaa waxay iska iloobaan bulshada qaar ka mid ah kuwaasi oo ay ballanqaadyo u sameeyaan marka ay ku jiraan ololahooda doorashada, kaasi oo ay doonayaan inay ku hantaan maamulka Mandera. Waxa ay soo dhaweystaan dad gaar ah kuwaasi oo ah qofka maamulaya deegaanka kuwa ugu dhow, taasina waa mid ka mid ah musuqmaasuqa. Waxa aan jirin isla xisaabtan ka imaanaya bulshada ay madaxda u yihiin. Taariikhda casriga ah Mandera waxa ay si cad bulshadeedu ugu guuldareysteen inay soo saaraan masraxa siyaasadda hoggaan leh awood ka madax bannaan qabiil daacad darro, kaasi oo ku dhisan isla xisaabtan. Marka aad u fiirsato dhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka, waxa uu hoggaamiyuhu garab ka dhigtaa qolooyinka isaga ku qabiilka ah si ay uga faa'iideystaan inta uu talada hayo. Waxa ay ku kacaan musuqmaasuq iyo ururinta hantida dadweynaha maadaama aysan ka dambaynin wax isla xisaabtan ah, taasi oo berito qofkaasi uu ku mutaysan karo ciqaab ama uu ku geli karo xabsi dheer. Dhanka kale, musuqmaasuqa baahsan waxa uu dhiirigelinayaa dadka ku dhow maamulka, kuwaasi oo si allaale siday rabaan u maamulaya hantida dadka ka wada dhaxaysa waxay rabaanna ka sameeya. Haddaba su'aasha taagan waxay tahay, maxaa ka hor taagan bulshada reer Mandera in lala xisaabtamo hoggaanka markaasi talinaya? La xisaabtan la'aanta dadka haya xoolaha ummadda kuna dhaca awoodda maamulka waxa ay keentay bulshada reer Mandera in ay abuurto dhaqan daciifiyo iyo kalsooni darro shaki gelinaysa dadnimadooda. Marka dib loo fiiriyo waxyaabihii ka dhacay deegaanka, ma jiro cid lagula xisaabtamay wixii ay geysatay. Tanina waxa ay sababtay dib u dhaca dhanka bulshada ah, waayo ma jiro bulsho ku baraarugsan waxa dhacaya iyo boobka lagu hayo hantida dadweynaha ee ka wada dhaxaysa ummadda ku nool Mandera, ayadoo loo adeegsanayo mid gaar ah iyo mid dad gooni ah wax loogu qabanayo. Bulshada qaybaheeda kala duwanna lagu kala saarayo, qaarna lagu faquuqayo, qaarna wax loogu qabanayo. Xaaladda siyaasadeed iyo midda bulsho ee aan hoggaansanayn waxa ay abuurtay in hoggaamiyeyaasha inta ku dhow kaligood ay noolaadaan, waxa ayna aad isugu howlaan inay horumariyaan dantooda gaarka ah iyadoo aan laga baran wax cashir ah, taasi oo ay ku baraarugayaan dadka reer Mandera. Haddii uu jiri lahaa isla xisaabtan kaasi oo lagula xisaabtamayo qofkii dembiga galay, waxaa dhici lahayd in qof waliba uusan ku dhiiran lahayn inuu qaato hantida dadka ka wada dhaxaysa, waayo dowladaha dunida hormaray waxa ay ku gaareen isla xisaabtanka waa waxa ugu wanaagsan ee maamul uu ku jiri karo. Marka uu jiro musuqmaasuq, dadku ma ahan kuwo isla xisaabtamayo, qof walibana si allaale sida uu rabo ayuu ka samaynayaa xoolaha dadka ka wada dhaxeeya.